soo laabasho wanaagsan engineers waxaynu qaadan doonaa cashirkan gudihiisa typography theory oo ah qaybta saddexaad ee design theory-ga. Su-aashii aad isweydiinaysay design theory-ga markaynu soo qaadanay maxay ahayd? Waa inaad ogtahay sababta aad u sameynayso waxa kan aad sameynayso. Okay, design baad design garanaysaa, sababta waa inaad ogtahay. Maxaan kalarkan uga dhigayaa? Waynu soo qaadanay. Okay, color theory-ga waynu kusoo aragnay. Contrastiga, balancega iyo principleska aynu soo qaadanay sidee baan u adeegsanayaa markaan designkayga joogo. Typography theory ayaynu ku xijinaynaa. Okay, waxaynu eegi doonaa typefaces iyo fonts waxay kala yihiin. Common types of typefaces baynu eegi doonaa. Kerning waxa la dhahaa ayaynu eegi doonaa. Tracking, leading, hierarchy, anatomy of typography. Intaa ayaynu eegi doonaa insha Allah. Okay, intaa kor horta waa maxay waxa la dhaho typography? Waa kelmado iyo texti la akhrin karo, sidoo kale qofka uu dareemi karo waxaan inuu fahmayo. Okay, typography-ga hagaajinteedu khasab weeye inaad qurxiso, waayo waxaad gudbinaysaa message-kana waxaad rabtaa inuu gaaro qof kale. Qofkaasi haddaanu fahmin ka waran waxaad soo qortay, ama aadan garanayn adiga laftarkaagu sababta aad u adeegsanayso wax kan, way ku adkaanaysaa. Qofkaasi inuu gartona way ku adkaanaysaa. Okay, marka haddaad iska habayso typography iyo qaabka loo adeegsado, waxaad dareemi doontaa big difference oo ku imaanaya designkaaga iyo waxyaalaha aad adeegsanayso. Okay, typeface iyo font waxa la dhaho jira. Typeface waa maxay? Waa designka fontiga, waa designka farta nooca aad adeegsanayso. Tusaale ahaan waxay noqon kartaa Roberto, waxay noqon kartaa Times New Roman, waxay noqon kartaa Barlow, Poppins, Open Sans. way badan yihiin, faro badan baa jira. Okay, marka fartaas waxay wadataa noocyo ama weights bay wadataa. Weightska waxaan dhahaynaa fonts ayaan dhahaynaa. Dad baa waxay ku khaldaan fontska noocan. Kan typeface baa la nooca farta. Kan waa fonti, waa weightkeedii wuxuu noqon karaa mid thin ah, mid light ah, mid regular ah, mid medium ah, bold, black, mid kastana wuu leeyahay. Marka rubataan markaad adeegsanayso tusaale ahaan ciwaanada waxaad ku qoraysaa bold, subtitleskana waxaad ku qoraysaa thin ama regular. Meelaha yararka aan rabin in moogta marka ugu horeysa la arko light baad ka dhigaysaa. Marka wax ku xisaabtamaysaa weightsyada iyo fontska ku xisaabtamaysaa. Marka waa inaad kala fahmi kartaa. Ifan haddii lagu weydiiyo waa inaad garan kartaa. Waayo graphic designer baa noqonaysaa. Wuxuu qof baa ku dhahaya inuu typeface-kaasaan adeegsanayaa. Typeface waxaa la dhaho taqaanidba. Hadda iyo kahor baa inaad raadisaa. Marka waa inaad iska ilaalisaa. Okay, marka common typefaces baa jira oo badanaa qofka la rabo inuu ogaado, ama dee farta aad adeegsanayso inaad kala ogaato waxay tahay serif, sans serif iyo display. Saddexdaana u soo koobay laakiin way badan yihiin. Okay, seriftu waa maxay? Seriftu wareeg ayay waxay ku leedahay halkan dambe, meeshan dambe ayay wareeg ku leedahay ama wax dheer ku soo leedahay. Soo ma jeedid? Gadaal ayay waxay ku leedahay daba yar oo tail ah ayay ku leedahay. Maxaa kamid ah popular sans serif typefaceska? Serifkan ka wadaa Times New Roman baa kamid ah iyo qaybaha kan oo kale. Marka intaan oo kale dad baartid oo arki kartaa waxay ku kala duwan yihiin. Sans seriftuna waa maxay? Waa kuwa aan gadaal ku lahayn, ma ogtahay dabadii. oo jeedaad kan waxay ku lahayd daba yar oo dheer bay ku lahayd, laakiin se kan wuu siman yahay. Maxaa kamid ah Open Sans, Lato, Roberto, Montserrat, Bobbin, Railway, Helvetica, Area. waa kuwa badanaa la adeegsado marka graphic designers aad bay u jecel yihiin sans serifta. Marka waa inaad fahmi kartaa. Okay, display baa kamid ah. waxaa kamid ah marka scriptiga, iyada way fara badan tahay. Different style bay ku timaadaa. Script, black letter, all caps, plain, fancy. marka script way noqon kartaa noocan ay noqon kartaa. marka kuwa ugu muhiimsan waa maxay? Serif iyo sans serif. waa inaad kala fahmi kartaa. markii aad joogto typography theory, waxyaalaha ugu muhiimsan la rabo inaad fahanto waxaa kamid ah kerning waxa la dhaho. Kerningkuna waa maxay? waa spaceka u dhaxeeya specific character. owda loogada tan oo kale, owda iyo jida inta u dhaxaysa ayaa waxaa la dhahaa kerning. waad yareyn kartaa waanad weyneyn kartaa. marka kerningku waxa weeye waa spaceka u dhaxeeya laba xaraf weeye. sidoo kale waxaanu aad ugu sharxnay kooraska Photoshopka ee yaala website-ka. marka halkaan oo iska diiwaan gelin kartaa. sidoo kale qofkii qaata waxaan ugu talagalnay inuu noqdo qof xagga Photoshopka ka dhammaystiran, just laga rabo qofkaasi inuu practical sameeyo hadhown oo ku shaqo tago. waxaa jira tracking waxa la dhaho. trackingku waa maxay? kani wuxuu ahaa laba xaraf inta u dhaxaysa labada tan. laakiin se trackingku waxa weeye xuruufta
spaceka u dhexeeya oo dhan interword soo ma jeedid waxaad samayn kartaa kan waa kala jiidi kartaa oo isku soo yareyn kartaa laftarkiisa waxaynu ku qaadanay qaybta kooraska dambe leadingkuna waa maxay waa line spaceka laba paragraph ama laba lineka u dhexeeya ayaa waxaa la leading marka waa inaad fahmi kartaa qaabka loo saxo iyo waxyaalahan waxaynu kaga hadalnay kooraska hierarchy baa jira hierarchyna waa maxay waa inay kala sarreyn leeyihiin meesha ugu horeysa uu arkayo tusaalehaan textiga marka ugu horeysa uu arkayo tusaalehaan business cardkan oo kale business cardkan waxa ugu horeeya la akhrinayo waa maxay waa magaca kadib maxaa la akhrinayaa web designer kadib maxaa loo tagayaa qaybta tan halkan maxaad ku arkaysaa fontigi bas ayuu kala duway laakiinse maxaad arkaysaa hierarchy buu u sameeyey kala sarreyn waxa ugu horeeya la arkayo wuxuu ka dhigay bold waxa labaad wuxuu ka dhigay color kale contrastigii buu kala duway laakiinse muxuu ka dhigay semi extended ama mirrored boldly kana semi extended buu ka dhigay kana muxuu ka dhigay regular soo ma jeedid wuu ka hoos mariyey sababtoo haddaan kan weynayo kana la arkaya marka ugu horeysa marka waa inaa fartaada hierarchy u sameysaa oo kala sarreysiisaa anatomiga farta waa inaad kala garanaysaa anatomiga typographiga mid walba oo halkan ku jira waa inaad iska eegtaa sidoo kale waxaa kusoo kooban typefacyada iyo classificationkooda iyo waxay kala yihiin waxaad ma ogtahay typographiga uga baahan tahay oo dhan halkan waad ka heli kartaa okay just waa bonus aan kusoo daro anatomiga inaad garan kartaan shoulder in halka la dhaho cross stroke in la dhaho closed container in halka la dhaho arm in halka la dhaho abich in halka la dhaho okay curve height in halka la dhaho marka waxyaalahaas oo dhan inaad kala fahmi karto serifta iyo sans serifta waxay kala duwan yihiin oo kale halka waa lagu sharaxay type hierarchy waa kana heading subheading body copy soo ma jeedaan headingki waxaa loo bixiyay moogtay large size balasiye subheadingkiina smaller than copygana bodygana maxaa ka dhigtay wax sii hooseeya halkana aad baad u sii yaraysay marka waa inaad fahmi kartaa marka typography theory-na intaasaynu kusoo koobaynaa insha allah guuleysta